maleeshiyada kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo jug culus lagu gaarsiiyay howlgallada ciidanka xoogga dalka ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa qaar ka mid ah horjoogayaasha nabadiidka waxaa la sheegay inay u baxsadeen gobolka Shabeellaha Dhexe si halkaas ay ugu dhuuntaan isla markaana ay ka sameystaan goobo ay gabaad ka dhigtaan. ciidanka kumaandooska danab gaar ahaan ururka 7 oo dhawaan talis ciidan ka sameystay magaalada Jowhar ayaa ka war helay farxadka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee soo galay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana howlgal lagu baacsanayo argagixisada ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi. xogta horjoogayaashii maleeshiyaadka baxsadka ayaa ciidanka waxa ay ka heleen dadka deegaanka oo xiriir la soo sameeyay ururka 7 ee guutada 16aad ee danab waxaana ciidanka ay cagta mariyeen goobihii nabadiidka ay gabaadka ka dhigan rabeen. deegaanada kumaandooska danab ay howlgalka ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Gamboole, Xawaadley iyo Fiidow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaas